markii ay dhageysatay maxkamaddu qiraalka eedeysana Nuur Daahir Geedi uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in isagoo sigaar ka iibsanayo marxuumka ay xabad ka dhacday qorigiisa sababtay geerida marxuum Umar Xasan Macalin. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Deble Police 24682 Nuur Daahir Geedi ina Caasiro Maxamuud Xuseen 29 jir ah ku dhashay Gaalkacyo ka tirsan saldhigga booliiska Shangaani kaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah dil kas ah isagoo si bareer ah u dilay marxuum Umar Xasan Macalin. Dambigaas oo ka dhacay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir 16 bishii 2020 markii ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo la jooga marxuumka uu imaaday eedeysanaha oo wata lacag shilin Soomaali ah uuna u dhiibay marxuumka kadibna marxuumku uu ku dhahay lacagta way jeexan tahay eedeysanuhuna uu damcay in uu xoog wax looga iibiyo marxuumkuna uu ka diiday kadibna si xanaaq leh uu uga tagay eedeysanaha wuxuuna soo laabtay isagoo ku hubaysan qoray iyo boosh wuxuuna xoog ku qaatay baakad sigaar ah kadibna marxuumka ayaa ku dhahay ii dhig xoolahayga eedeysanahana wuxuu ugu jawaabay 2 xabadood oo mid ka mid ah wajiga kaga dhacday marxuumka sidaasna uu goobta ugu geeriyooday. markii ay aragtay maxkamaddu cadeemaha dambi muujinta ah ee la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen cadeemaha laga qoray maragga qiraalka laga qoray eedeysanaha warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirka marxuumka qorayga uu dilka ku geystay eedeysanaha markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysane Deble Police 24682 Nuur Daahir Geedi uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Umar Xasan Macalin. cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan wabillahi tawfiiq.